bal ciyaaraha iyo waqtiga kan ciyaarana waxa ugu weyn caawan waa Europe League Man United oo kale waxay caawa soo gali doonto 10 habeen waxay la ciyaarayaan ilmihi khatatada ay Sevilla ilmaha oo kuwaas dadka nimanka tartanka iska lahaa la ciyaaraya halka Juventus Sporting Lisbon inuu ciyaarayaan caawa 10 habeenimo nimankii Jal Rose Roma waxay la ciyaarayaan caawa finalina waa waqti hore oo 8 oo hubi dhiman camal bay soo gali doontaa waxweeyaan Manchester oo hadaan ku horeyno waxay la ciyaarayaan nimanka record ugu fiican haysta ee tartankan waliba ku guuleystay tartankan 6 jeer ay habeen ku la ciyaarayaan oo Sevilla waa dad aad u dhib badan oguna Manchester United wali waxay ku dhiban tahay inay garaacdo Sevilla oo ay ku garaacaan tartanka Europe ama tartan walbo Europe way awood leedahay Manchester inay garaacdo Sevilla mar baraajay la galeen marna guul daraka kaga soo gaartay ciyaaraha Champions League wareegga 16 sidoo kalena Europe League finalkiisa lagu laatay hadda koor bay isla ciyaareen Manchester baana meel la saaray marka Manchester Sevilla way ku dhiban tahay oguna Sevilla way awoodaa mar walba oo kooxaha Ingiriiska la ciyaarayeen soo gudbaan tartanka Europe Sevilla waxay soo gudbaysay 6 kamid ah 8 jeer ugu dambeeyay kurmada knock out-ka oo ay la ciyaaraan kooxaha reer Ingiriis way soo gudbayeen kali wuxuu guul dareysteen mar Leicester la ciyaareen iyo mar West Ham la ciyaareen laakiin iyagu xataa ugu Manchester City kan waxa loo soo diray inay garaacaan kooxaha reer Spain maxay leeyahay waxay noqonaysaa kooxdii labaad ever ee 4 kooxood oo kala duwan oo hal wadan ka socda hal xilli ciyaareed gudii kula kulmaan tartanka Europe Sociedad bay la soo kulmeen way soo reebeen way soo garaaceen Barcelona way soo garaaceen way reebeen Real Betis way garaaceen way reebeen imkuna Sevilla sidaas oo kale hada kor Leeds baa sameysay oo 4 koox Spanish la kulantay laakiin still Manchester waxay ogtahay inaad la ciyaaraysan nimanka baahida tartankan Sevilla bila Rashford caawil ciyaaraysan oo ninka xaga dhaliyay 29 gool kooxda Manchester United oo marka wax weeyaan ninka ugu goolasho badnaa xilli Manchester caawa ka maqan yahay Rash marka waqa xilli sidoo kale caawana aan arki doona Mourinho ilaa iyo Juventus inuu sidoo macnaha caawa lugaha kuwad ay natiijo fiican u kaystaan training sanadkan tiimidiis waa kacsiin Inter Milan baa laga Inter Milan iyo Napoli baa dhanka Champions League jooga Inter waxa soo jooga Europe League nimanka la yiraahdo waxa jooga Roma ilaa iyo waxa jooga Juventus hatta markaad fiiriso Conference League waxa jooga kooxda Fiorentina marka sanadkan Italiaanka waa kacsiintiyo intana waa inta xalay Champions League waxa laga soo calaamadeeyay mar kale Modric iyo ninka la yiraahdo Kroos waxa la ku duqoobay sanad kasta anagoo dhahayna war waxan waa si duqoobayaan bay sanad kasta koobkii qaadayaan oo ay wacdareynayaan mala waxa la isleeyahay kuwan hadii xataa lagu laatay 40 la keeno 2040 hadii la keeno nimanka saan u shaqooleynayaan sanad kasta waxaan dhahnaa war waxan waa duqoobeen anagoo dhahayna wali wacdareynayaan bal xal waxay dhigood arkaysaa bal fiiri ninka Modric la yiraahdo 30 sano jir waa xal bal khadka dhexe wuxuu ku dhigay wad arkaysaa wuxuu ku galayo sad u soo galayo arkaysaa laakiin Enzo Fernandez daacadii lacag badan baa saaran waan ogahay laakiin ninka xalay Janis ugu badan ciyaarta Madrid isaga ayaa abuuray runtii taas oo ka badan ciyaartoy kasta kooxda Chelsea tuu abuuray isaga laba waxa la abuuray inuu hal bay abuuran ciyaartoyda kooxda Blue marka taana waa taa mid kale Real Madrid waxay u keeneen nafta kooxaha Ingiriiska hadda Arsenal bay sugayaan Yahoo Maxamed maxaad sheegaysaa Arsenal waa soo socotaan waan ogahay Champions League soo socotaan nimo Real soo socotay booskii Champions League weynaysan waan ogahay laakiin xagada Madrid idin sugaysa maxay yeelay Madrid bal fiir imku waxay garaacayaan kooxaha Ingiriiska ugu yaraan 6 ama 7 team Ingiriis bay garaacayaan ugu yaraan 2 jeer bay garaacayaan iyo ka badan fiiriya waa 6 ilaa 7 kooxood Ingiriis bay garaacayaan ugu yaraan 2 jeer iyo ka badan bal fiiri Liverpool bay qabteen 7 jeer ay ku garaaceen Champions League Man City ay qabteen 3 jeer ay ku garaaceen United bay qabteen 3 jeer ay ku garaaceen Champions League Leeds ay qabteen 2 ay ku garaaceen jeer Chelsea 2 jeer bay garaaceen sidoo kale Tottenham 2 jeer bay garaaceen iminku Arsenal way sugayaan baa la runtii oo waxa weeyaan xaga dambe sugayaan si inay u garaacaan bay sugayaan baa la runtii marka waxa weeyaan Madrid kooxaha Ingiriiska loo soo diray mid kale laakiin Chelsea watan xadin dhahay Chelsea 2 gool in looga badiyay wali xoogaa waxa weeyaan maalmo magaalku waxay ku joogi karaan dhigi doonaan waa sameyn doonaa kama waana wax diiday mal way sameyn karaan marka idinka buuq iyo xuquuq iyo xaq isgili Madridow hadda xal ciyaarska dil leedeen majalisa saama dhiileen waana Benoni waxaan way sameyn karaan waa Benoni wax aan suurtagal keen ma jiran laakiin Chelsea dad xal dil leedeen iidan ba afaare iyo soo laabanina galeen hadda bal fiir Frank Lampard wuxuu ma taqaana wali kulku waa furan yahay waxaan sameyn doonaa marka bridge lagu ciyaarayo wax khaas kan baa waan sameyn karnaa macna bridge marka lagu ciyaarayo waa ogaa Chelsea jiroley waaye iida batid iska haysataa laakiin Benoni waa still waan sameyn karnaa bay leeyihiin wax diidina ma laha way sameyn karaan waa Benoni waxaan cid iiga iska la gooni u leh ma laha marka waxay leeyihiin annaga comeback baan sameynayna ilaa 2 gool uba weeyaan
ولا بقول ما حيتها هل كورنا لو صوتورو أو مدح لو داليو إيميد كلو لو صوتورو أو سنت لو داليو يقول كلا أي وحي أسطول ماني يابا وافذي ورك وأوجي لكن يعني وحنا أوردان كريج لكن وبنوني يا ليه بقول أركض هذا كورنا السوق ما أوريجي وين الدم أوريجي وين الدم أي أبي قد بيلو سعود وحلا كده لكن نمكو حيلين كلهم كان مردي من كم بقى سمينا لين والباير بيجون زدح لقيه تجي الحتاجين هاي كلهم كان مردي من مركو كله إذا ور محل سكود لا أسبوع ده مهور الله عياره إذا لسه بقينا بالشيء كذا هدا مهور لقد ده بمعنى أسبوعي فربنا أو لقود ده أو لبق بق والله فان ما بيالان بقى أسبوع ده إيد بقى كويس سوا بكم بقى مثل اللي جاكل خدي سبي ده وأميسين ولا هي كلهم كان مردي من يا مدة كله waxa uu leeyahay Ferdinand kooxda reer Spanish kooxda reer Spanish khalad bay ku ahayd buuri inay Chelsea oo saas ay 10 ku ciyaareysay in laba gool ugu badiyaan wayna Madrid ka murugaysan tahay habeenka kan inaysan Frank Lampard kooxdiisa hadaba ciqaabin oo Bernabeu ku ciqaabin Janis bay lumiyeen buulay runtii Janis bay lumiyeen habeenka oo imanka meel ugu tiri kareen xasuusta sanad dhaweyd Man City baa ku loo eeday waxa la Man City khalad bay ku gashay Madrid inay gurigeed u dirto inay caawa ka badbaadiyo inay caaw buuxin waayaan gool badan ka dhali waayaan oo Madrid oo dhaawac ay Bernabeu u diraan khaladkii Man City laga sheegay uu ku soo baxay marka xagaas la tagay Man City waa la dilay hadda waxa la leeyahay Madrid khalad bay gashay Chelsea xal laba gool naf ugu tagto Chelsea naf la day ka soo fasaxeen Spain waxa la leeyahay waxba dhici kara marka taasna waa taa midda kale ogow Madrid ninka la yiraahdo Toni Kroos xudis wuxuu la mid taqana xal waxaan awooday ugu yaraan laba gool ka badan ma ku badin wuxuu ninkan aaminsan yahay in ay ahayd xalay in natiijada sii kordhiyaan ugu yaraan laba gool ka badan in la beed buur si micna ciyaarta u jiifino xogaa Madrid xogaa iyaga xataa cabsi meel dheer ku jirta waa ka midda kale madaxweynaha kooxda Chelsea ciyaarta wuxuu ku saaday 3 ibran ku badinayna laakiin isaga 2 ibran lagu garaacay Suarez waxay Faras maxaa ku geli waxaan cidin uu kicii balaayada uu kicii leeyahay runtii taana waa taa Ancelotti ninkan tababar cajiib weeyaan wuxuu noqday macalinka taariikhda guulaha ugu badan Madrid siiyay weeyaan Champions League xalina guush 3 buu gaaray midda kale xalay maxaa dhacay kubad banaanka u soo baxday ayaa intuu controlay ayuu baleejay ayuu u celiyay James Williams joogay Chelsea Ancelotti laacib sana ila ninkan ma ogtahay maahan kaliya tababaraha taqaananay koobka aruursada ma aha Ancelotti birigu ciyaartooyga AC Milan u soo ciyaarayna laba jeer Champions League u soo qaaday wuxuuna ahaa nin cajiib oo aan caadihin buu ahaa iska jira Ancelotti ku orod ma ahan birigiisa horba ciyaartooy muhiim buu ahaa laaciba marka Chelsea waxay leeyihiin waariyaha Ancelotti baba booski ilaa kooxdeena Chelsea waxay leeyihiin kooxdeena galabgalada Chelsea Ancelotti dila keena xataa booski ilaa bay leeyihiin Juventus kooxda Chelsea oo taana waata midda kale Chelsea waa markii ugu horeysay ay awood u yeelayso in afar ciyaarood isku xiga ay gool weyso tan iyo 993 bal fiir iminku kulankii Aston Villa kii Liverpool kii Wolves iyo kii Madrid ba intaba gool bay waayeen Benzema xaalan buu ka daba gashanaya daacadii Benzema war buu wadaa inkastoo Messi ku badnu ku guuleystay laakiin ninkan hadduu hadda Champions League ku guuleysto saan hawsha ku sii wado wax walba macquul Ancelotti sidoo yiri baan ka hadlaya wuxuu yiri maxaa diiday in loo labeeyo ninka Ballon d'Or ku rumicna arin ku dhahay Messi wax ma qaadi karo Messi ko aduun wata uu tirsaday baab weenkii wata Messi laakiin ninkan still balaayo weeyaan ninkan bal fiiri goolka sidii looga soo laabtay oo isagu ka xariisna xulka Faransiiska aan la ciyaarsiinin oo yaani isku kaceen macalinka tan goolka laga soo laabtay 8 gool u dhaliyay oo wuxuu bareejay Haaland rekoorkiisu bareejay runtii marka ninkan isna waa si fiican buu ku jira mid kale ninkii Vinicius Junior daacadii aad u weynaaday وويناد عنده مسكحديس واكل قاضي وادم بلانت مسكحديسي نيكان بريبان اسكا كو كفتمي جيرو اسكا عايجي waxaan dhigi jiray war canugi ardayda ximistarin kamid aha oo wax khasaarinta badnaa in waweynaad bal fiir xal isaga Milan iyo Madrid xal waxa la kala siiyay finish iyo Brahim Diaz baa la kala siiyay xidigaha ugu fiican ciyaarta laakiin still ugu Brahim Diazna Madrid baa iska leh ogowna ninkan Liverpool ciyaartidii lugtii koowaad isaga wacdareeyay xidig ugu fiican ciyaarta la siiyay Vinicius Junior xalina lugtii koowaad Chelsea isaga ciyaartooy ninka ugu fiican la siiyay marka ninkan kooxaha Ingiriiska waa daba dhigtay iyo ciyaartooy Ingiriiska ciyaartii hore waxa la ruuxu jeebka gashtay Arnold tii xalina James uu meel saaray marka ninkan waa nin caadi ah runtii sanad ay wada ogaa mar walkar uu dhaawacmay Fernandinho tuu ku dhig waa looga marka waa ninkan cajiib ah Vinicius Junior kooxaha Ingiriiska tan iyo xagaga la soo dhaafay Champions League markuu la ciyaarayo afar gool uu ka dhali shan uu ku caawiyay midda kale tan iyo xagaga la soo dhaafay Champions League marka la eego ciyaaryahanka ugu caawinta badan Vinicius Junior 10 gool buu caawiyay halka Cancelo Lloris Sane Mbappe iyo Kylian Mbappe ay caawiyeen حتى نيكان تاني حاجة لسه رافضون قولوا جميل وهيستان ونيكان واتري نيكان هو وينادي ولا نيكان ور نيكان واخان قارين ونيكان مسكحي سواك على قاضي نيكان وينو كصوب حكي ورد عدي لكن ولي
وحوجا بوق هدلا يور يخجع مرنا هدلا إنه دتك بهدلوا جعل برازيل وياهي ولكن نيمار وبحالري وريو دتك بهدلنا زايد أو عبين بالي رموته ترتيب وشافي هتقولي رموته وحوري أنا حرفة أنا هاي سوري تقوى عبين ورمنا سنة جبتها لو داوع لو قرم لقوا مقيم سجاش قوى داوعية مركب فينيشنا حوجا تقوى كحريسين يا ده الورقة تمينا وحال انتو ساو دافي فوري جالا لا سيورني كا ما عندنا قيلنا والله أركض إسبان ما له كي أروح كي وحوري وكان دو قيل إسكداف لوري ور يبوخ دو إسكداف لوري برون سوجي زلوري warkaan laba joogsanaan la buru waa inta Milan labada Milan midkoodna Champions League naga awsay gool looga xaga naga out sida loo soo galay ilaa hadda gool looga dhalin ya waxay kala haystaan laba gool hayo Onana iyo ninka kale maxariday Magnan oo labada dhinacba kala hayo waa suurtagal baa labada Milan bay isku arki karaan semi-final koobka Champions League walow lagu ciyaar ay lagu labaad ay dhiman yihiin balse Milan iminku 5 ciyaar soo xigtay Champions League shaqoodi la shanayaan markii ugu horeysay sidaan ay sameeyeen weyn tan lagu afartii shantii markaas iyana 7 ciyaar suuq dilaashteen yani Milan 500 iyo koti 2 daqiiqo wax gool laga dhalin war Milan maalmo hore oo horyaalka Serie A hadda meesha maxaa keenay mataqaana oo horyaalka Serie A sanadkan aysan u difaaci karin maxaa keenay mataqaana gool haye galab meesha joogo Tata Rushan yiraahdo ninka waa dhaawacna marka ninkan cajiib waa ninkan gool haye waa dhaafay oo hadda kor biish horyaal wuxuu kaga qaaday isagoo koox yar u ciyaar horyaalka kaga qaaday midda kale Inter Milan iyo AC Milan xagan bal fiiri حقاً إنتر ميلان سجال عيار جمليق عيارتي تدو جول بس بالك دليل لح جرى شيء وقود العشتين ميلان حقاً سجال عيار بعيار جمليق ما يتدو جرى بقول لهم تدو جول بالك دليل سنين تراكله لكن شن جرى بشيء وقود العشتين تانو وتامر كلام ميلان أدو كعسين ميدا كلام ميلان حريفين بيكونين ستيل كوحة إيطاليا مركل العيارين حلو الحياة مركي توناد أو كوحة إيطاليانا ميلان كجوهر ما نيسو ترتمى ذا يوروب جارهان جمليقو والجود ميلان هل جرى بيقول درك سوغات كوحة إيطاليان مركل ميلان أود ولا كوحة إيطاليان سيد اللي سكتيرو وهذا كيس هذا النابولي بي laba ciyaar soo xigta garaacayaan qarigan markii ugu horeysay hadii ay markii saddexaad garaacaan ciyaar soo aadan semifinal ku tulaadna waxay noqonaysaa Milan markii ugu horeysay inay tagaan semifinalka Champions League tan ilo kala xididooday ya marka Milan caadi ma aha waliba waxay xal markii afraad oo ay koox Itaaliya Milan kaga hor imaanaysa tartanka Yurub Champions League hadda ka hor semifinalka waxay ku rabeen Inter 2023 semifinalkii sidoo kale sideedii ku rabeen Inter Juventus bay ka qaadeen finalkii هذا النابولي حلقة الحين مركب ميلان أودو هيسا مركب كوحة إيطاليان مركب العياريان ميلان لقما شكي كهو ميدا كلا النابولي معنى كده سبليتو أخي جو زي من بقول عيار حكتاي مارادونا كان عايز جروك هيسا جروك مارادونا إنه حاضر نقود دوره مركب وحويان كونو كاس وورا جري دونه ولو حالي ريد يو جناحية هي النابولي هذا نوزمني كفارادونا بمركب السيريو تاوتا